aan ku bilownay dalka jarmalka waxaa lagu soo waramayaa in wiil soomaali ah uu geeriyooday kadib markii uu isu dhigay tareen. sida ay baahaysay warbaahinta jarmalka waxa uu noqonayaa qofkii afraad oo soomaali ah oo shil tareen ku dhinta dalka jarmalka sanadkan oo keliya. cabdiyar geesay oo degan jarmalka wiilka dhintana is yaqaaneen ayaa uga warramay arrintan maxamed colaad xasan. wiilkan dhimashadiisa dadka ku nool magaalada Frankfurt siyaabo kala duwan ayay uga hadleen. qaar waxay sheegeen in uu wiilka xagga maskaxda ah oo isku dhex buuqay, qaarna waxay dhaheen balwad iyo waxyaaba noocaas oo isticmaalay. laakiin dadka sida ay u badan yihiin waxay sheegeen wiilkan in oo maskaxiyan uu isku dilay. waddo tareenka maro oo Frankfurt iyo wadadan Wiesbaden tareenka maro, wadadii tareenka gala, tareenka wadada soo galaya, sidaasuna ku dhintay 29 bisha markeed maalinta Khamiista. waa gartay. wiilkan maxaad nooga sheegi kartaa, muxuu ahaa? wiilkan cabdi maxamed la dhahaa. wiilkan si wacanaan isku naqin. wiilkan waxaan isbaranay 2016 colaadow mar aan joogay magaalada Athens ee dalka Greega. wiilkan wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii farakutiriska ahaa ee kasoo badbaaday doontii ku gudoontay badaha Masar iyo Italy. doontaas oo ay ku geeriyoodeen Soomaali tiradoodu lagu sheegay ilaa 380 ilaa 390 qof. asagana wuxuu ka mid ahay 41 qofood oo magaalada Athens la keenay. markaasaan isku baranay magaalada Athens. wiilkan wuxuu ahay dhalinyarada reer Muqdisho. waqtiyadii dambena wuxuu ka shaqaysan jiray dalka Kenya magaaladiisa Nairobi, wuxuuna yaqiinay xirfadda harqaanka. wiilkan waxaa wada deganaa magaalada Frankfurt, wuxuuna ka mid ahay dhalinyarada ka shaqaysata harqaanlahu ahaa magaalada Frankfurt. dukaan Soomaali ah, dhalinyaro Soomaaliyeed oo dukaan Frankfurt kula ayuu u shaqaynayay, harqaankuuna u tali jiray. dalka Jarmalka uu yimid wuxuuna weydiistay magangelyo. broseskiisana wuu socday colaadow sida dhalinyarada ay ii sheegeen. asagana mar aan wada sheekeysanay in wadahadal u socdo dowladaha Jarmalka iyo Greega oo ka helay magangelyo. kadibna wuxuu usoo gudbay dalka Jarmalka. walow Jarmalka iyo Greega ay ku kala duwan yihiin xagga shaqooyinka iyo nolosha. bal waxaad iga warantaa, ma aha markii ugu horreysay oo qof Soomaaliya oo shil tareen ku dhintay sidan oo kale gobolka. sanadkan marar badan baan arkayay warbaahinta Jarmalku baahinayeen. colaadow waa runtaa, taa way jirtaa. inkastoo Soomaalida ku dhaqan dalka Jarmalka aysan lahaynin jaaliyado isku xiran oo iska warqaba. qaar baa isbitaalada isaga geeriyooda, qaar baa daaraha dheer iska toostuura, qaarna tareenada isku dhigaan. sanadkan hadda ku jiro 2019 wixii aniga aan maqlay oo qaarna anigaaba ka qayb galaba ilaa iyo wiilkan wuxuu noqonaa qofkii afraad. 3 wiil iyo qof dumar oo sanadkan ku geeriyootay shil tareen ah. dhalinyarada Jarmalka joogta ee Soomaalida ah noloshoodu waa sidee, gaar ahaan kuwa qaxootinimada kusoo gala? colaadow wadankan Jarmalka guud ahaan hal dhibaataa ka jirto oo xagga aqoonsiga nala qabin jaaliyadaha naga soo horeeyay ama kuwa nala midka ah. taana waxaa weeye colaadow dowladda Jarmalka qofka Soomaaliga ah marka uu yimaado waxay siisaa sharci yar, waxayna ugu qortaa in aysan aqoonin wadanka iyo jinsiyadda uu kasoo jeedo. waxay u aqoonsataa qofkan in uu yahay, in uu sheegtay Soomaali, aysan iyaga u aqoonsan inuu qofkan Soomaaliya. xitaa dhibaatadaas keliya kuma sinne, waxaa kaloo jirta xataa caruurtii dhalata xataa waxay leeyihiin yani uma aqoonsanin inuu yani Soomaali yahay, iyagoo u cuskanayo waalidkii dhalay uusan yani u aqoonsanin dowladda Jarmalka in uu yahay qofkan Soomaali. waxaa kaloo colaadoo jirto sharciga oo Jarmalka sanad walba waxbaa laga bedelaa. sanadkan qodob waxay ka bedeleen 2 qodob oo ah waxbarashadii iyo dadka Soomaaliga ah gebi ahaantooda in laga reebo jaanisyadii waxbarashadii ay u lahaayeen, iyo shaqooyinka qaar in dadka Soomaaliga aadi karin, xitaa kuwa sharciyada haysto shirkadihiina ay shaqooyin sii karin. sababtoo ah qofkan mama ku aqooni, bangiyada qaar xitaa ma ku aaminayaan. markay sharcigaaga eegaan waxay ku leeyihiin yani wixii aad tahay annaga ma aqoonin, dowladdii oo aan hoos joognaba ma ku aqoonsanin ku leeyihiin. marka haddana taasna waxaa ugu sii daran colaadow Soomaalidiyooba isku xirneynin. jaaliyada ma jiro Soomaali ay ku midaysan tahay. tusaale ahaan markii oo shilkan hadda oo kaloo dhacay oo hadda wiilkan ku dhintay tareenka oo kale, waxaa laga yaabaa Soomaalida qaar inaysan maqlin. jaaliyada ma jiraan dabagalo u tago isbitaalka tago, booliiska tago, kiiska soo fiiri waxaan sida ku dhaceen. taasaa keeni karto marka ummadu markii isku xiran tahay ayay xuquuqdooda wajihi doonaa.